daawadayaal dagaalo qadhaadh oo ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay aan soo ururinay dagaaladii saaka ka bilowday saaka subax hore magaalada Laascaanood oo indhaweytay la soo urursanayay ayaa wararku waxay sheegayaan in ciidamada maamulka Somaliland cagta loo saaray oo kuwa badan laga dilay baabuurna laga qabsaday dagaal xooggan ayaa ka socda deegaanka Dhabarsaar sidoo kalena dhinaca bariga Laascaanood waxa uu ka socda cadawga ayaa si weyn loogu jabiyay ay dadku deegaanku soo sheegeen maadaama dagaalku ilaa hadda socdo dadka deegaankuna guulo fiican bay sheegteen ciidamada maamulka Somaliland ayaa cagta loo saaray meydadka maleeshiyadka Somaliland ayaa waran aaga koonfureed ee Tuulo Samakaab sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan ciidamada markaasi SSC dagaalkan ayaa waxa uu saaka bilowday xilli hore indhaweyto waxa jiray ishub urursikii u ballanaa ee la rabay in lagaga saaro magaalada Laascaanood duleedkeeda Goojacade oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland oo si xaqdarro ah ugu soo duulay deegaamada SSC haddaba muuqaal kooban ayaa jawga sidan magaalada Laascaanood u ahaa dagaal ka dhacay ciidamada SNB waanu jibinay شواد دوفي عيا حاول بواخد صوتها تدخل هو استامبل هيك ما دوكونا افكا ودا laga saaraya وين الفيديو كرنا وكغيره هاي افراعينه وكغيره هاي saaka dagaal ka dhacay ciidamada SNB waanu jibinay waxaanu joognaa deegaanadayadii saaka way jabay nimankaas insha Allah waanu guuleysanaynaa gacanta annaga iska leh haddana laamigaan tagaynaa saacadaha nagu soo aadan dalka annaga daawadayaal wixii warar ee ka soo kordhay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo u muuqata in ciidamada Somaliland laga saarayo deegaamada halkan ayaad kala socon doontaan oo ah warbaahinta Hogol News يا شواد دوفي عيا حاول بواخد صوتها تدخل هو استامبل daba si aad uga mid noqoto daawadayaasha ku xidhan fadlan YouTube-keena subscribe noo saar saaxiibadaada kalena sii gaadsii oo like-tana haddaad ku dhufato kaba si wanaagsan halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo dhan Hogol News warbaahin ka madax bannaan qabyaalad iyo sidoo kale mucaarad dhago oo dhagta u dhaadhici Hogol News